wardegdega diyaaradaha F-15 ee dawladda Cilmaaniga ee Turkiga ee gumaystaha cusub ee Soomaaliya waqti xaadirkan ku sugan garabna siinaya madaxweynihii muddaxileedkiisa dhamaaday ayaa xasuuq baan ka geystay duleedka magaalada Baydhabo shacab Soomaaliyeed oo deganaa oo beeraley ahaa shacab reer guuraa oo xoolo dhaqataa iyo beeraley intaba ayay la dhaceen gantaaladii ay u wadeen ciidamada xaqqa ah ee dawladda Koonfur Galbeed shacab fara badan ayaa halka lagu xasuuqay oo reer Koonfur Galbeed ah haddaba maxaad muwaadin adiga oo Soomaali ah kula gudboon waajib baa ku saaran dastuuri ah waajib insaani ah ku saaran mid islaamnimo ku saaran mid Soomaalinimo ku saaran qof kasta oo Soomaali oo dunida daafaheeda joogo ee maqlay maadaama ay dawladda Turkiga naga xishoon weyday shacbigeena ay xasuuqayso marnaba ma dhacayso inaan indhaha ka qarsano marnaba ma dhacayso inaan indhaha ka qarsano aniga oo cadaynaya mowqifkayga shacbiga Soomaaliyeedna insha Allah inay ugu garab istaagi doonaan aan rajaynayo waxaan ku baaqayaa shucuubta Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadlo nooca doontaba haw ee ka danqanayo ee ay dhibayso xasuuqa shacbiga Soomaaliyeed lagu hayo ee dawladda Cilmaaniga ah ee Turkiga ee garabka siinaysa madaxweynihii muddaxileedkiisa dhamaaday ay ku haysay shacbiga reer Koonfur Galbeed inaan nagala qayb qaadataan mudaharaad looga soo horjeedo dawladda Cilmaaniga ah ee Turkiga ee ka dhici doona qaaradda Yurub meel kasto ay tahay waxaan u istaagi doonaa inaan shacbigaas masaakiinta abraada ah ee la xasuuqay inaan garab istaagno waxaan muujinaynaa inaan aad uga xunnahay waxaan muujinaynaa tallaabooyinka Turkiga oo Soomaaliya ka qaaday inay tahay mid ka baxsan xuquuqul insaanka dambi dagaalna ay tahay haddaba muwaadin haddaba wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed ee ku sugan qaaradda Yurub waxaynu ka shaqayn doonaa inaan insha Allah dadka Soomaaliyeed u baroordiiqno tusnana inay wali nool yihiin shacbi Soomaaliyeed ee ka xun dhibta shacbiga Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed iyo duqeymaha isdaba joogga ee shacbiga abraada loo geysanayo ee deegaanada Ceeldoon Owdiinle iyo deegaanada ku agdhow Saydheerow iyo deegaanada la halmaaro ay xasuuqayaan ciidamada kufaarta ah ee Cilmaaniga ah ee Turkiga ee dalkeena duulaan ku soo qaaday haddaba Turkiga insha Allah wada shacbiga Soomaaliyeed nahay sida aan Etoobiyaanka ula dagaalanay oo Mareykanka ula dagaalanay ayaan saaka ka dhicin doonaa waxaan dhamaan ka tirtiri doonaa sawirkaaga iyo magacaagaba isbitaalka weyn ee Digfeer waxaan ka cayrin doonaa aeroboortka magaalada Muqdisho waxaan ka cayrin doonaa dekada magaalada Muqdisho waxaan waxba kaba jiraan ka soo qaadi doonaa dhici aad noo geysatay ee Xasan aad ku taageeraysay ee 95% ee khayraadka ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya waa nooshahay wayna noolaan doontaa waana isdifaaci doonaa biidmillaahi ilbaari waxaan sidoo kale halkaan rabaa inaan baaq uga diro sharnaan u diray aqoon-yahanka waxgaradka reer Koonfur Galbeed qaasatan beelaha Digir iyo Mirif duqeyntan waxay la mid tahay duqeyntii 1989 iyo 88 shacbiga reer waqooyi ama Soomaaliland laga geystay aqoon-yahana oo kacay waa la diiwaan galiyay dambi dagaal baa loo diiwaan galiyay adinkuna waxaa la rabaa aqoon-yahanadiinni waxgaradkiinni ururadiinna bulshada dadka luuqadaha ku hadlo inaad arintani campaign ka samaysaan oo la diiwaan galiyo Erdogan loo diiwaan galiyo inuu dambi dagaal galay qabaa'ilaad Soomaaliyeed oo duulaan ku qabiil kalena oo garab siiyay diyaaradihii F-15kii oo adeegsaday shacbi Soomaaliyeed oo beeraley ah iyo kuwa reer guuraa oo xoololey ah intaba inuu duqeeyay oo xasuuqay waa inaad diiwaan galisaan haddaba muwaadinka sharafta lahow nagala soo qayb gal guddi baan u diyaarin doonaa arintaas qaban qaabiyo wasaabiyaan samayn doonaa waxaa la rabaa haddaad tahay reer waqooyi reer Soomaaliland haddaad tahay reer Jabuuti haddaad tahay reer shanta Soomaaliyeedba dhammaan mudaharaadkaasi kuwa Canada jooga Canada inay ka qabtaan kuwa America jooga America ka qabtaan kuwa Yurub jooga annaga wadno qabanayno waxaan tusaynaa in anagu Soomaali nahay Soomaaliduna aanan marnaba raali ka noqonin in shacbigeena la xasuuqo Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha israacdo hal loo diyaar garoobo inaan ka dhidino dulmiga dadkeena loo geysanayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ballanteena waa banaan bax
ما براسلس بيكدع دونتا مثلا بيكدع دونتا انت بقى نغا ايسو شيغي دونا هلا وخرنا هذا بيج كان هير كونفور قلبت فيديو ميل فوق هلا غارسيو هلا شير غريو ميل فوقنا هلا غارسيو سي ان ان شاء الله اسكو جان قادنو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.